السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed saqiir iyo kabiir meel walba ay joogaan waqtiguna haynay wacnaado halka aad naga daawanaysidna waa Jana Galafoor official. haddaad nagu cusub tahayna subscribe, like, share, comment inta buuxa xaqiini. haddaad nala joogtayna like-ta naga iloobin, dhiirigelin ayay inoo tahay. qofka walaalkaaga hadduu tallaabo qaada ama horumar uu sameeyo waa lagu farxaa oo waxaa la yiraahdaa keep going hore u soco. maanta qofka xumaanta sameeya ayaan leenahay keep going hore u soco. qofka samaanta sameeyana lagama yaabo inaan dhahnaba. marka walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa subscribe, like, share, comment intaba naga iloobina. idinka ayaan wax idinku nahay. qofka markuu waxaa la yiraahdaa Soomaali waxay tiraahdaa ilmaha yaryarka markay la boodbootinayo inay waxay u moodaan ay isboodbootinay bal George cunugaada aad dhashay boodbooti bal kor u qaad George sikriisa boodbood wuxuu isu moodayba inay kaligiisa u boodbooday. marka qofka bini aadamka saas waaye, markuu qof meel sare u gaaray la dhaho ama heer u gaaray la dadkiisa gaarsiiyo mashi wuxuu iska gaaray ma aha dadkiisa gaarsiiyo. qof kaligiisna wax ma qaban karo. bulshada far kaligeed fool ma dhaqday tiraahdaa Soomaali. taasi waa iga xagga subscribe-ka haddaan meesha ugu gudbo caawa walaalayaal runtii aad ayaan mataqaanaa u murugooday markaan dhageystay walaasheena Aamino Dhool codkeedii iyo mataqaanaa aan dhageystay. runtii aad ayaan u murugooday. waxaan ilaahayna ugu baryayaa inuu ilaahay caafimaad siiyo fanaanadeena walaasheena maamadeena, inuu ilaahay caafimaad siiyo ayaan ilaahay ugu baryaa. waa hooyo Soomaaliyeed, waa gabar Soomaaliyeed, waa fanaanad Soomaaliyeed. marka walaalayaal Aamino Dhool way xanuunsan tahay, isbitaal ay ku jirtaa. waxaana laga hayaa kaliyaha laga hayaa Aamino Dhool. kaliyaheeda waxay ku shaqeeyaan mishiin ayay ku shaqeeyaan. mishiin ayaa ugu xiran intaas waa oo mishiinka uu ku xiran yahay. bacdeen waxaa hadda ku soo siyaaday in marka mishiinka uu shaqeeyo barasharka dhiigga uu hoos u dhaco. marka dhaqaatiirtii gacanta ku hayeen waxay dhaheen barasharkan hadduu kugu sii xirnaado laga yaabaa dabcan inaad u dhiman doontid. marka waxaan ilaahay ka baryaynaa caafimaad inuu ilaahay siiyo oo bedel kalidaas khayr qabana ilaahay uu siiyo ayaan ilaahay ugu baryaynaa. horta mideeda kale ummadda Soomaaliyeed, walaalaha Soomaaliyeed saqiir iyo kabiir meel walba joogtaan aan u duceyno walaasheena fanaanadeena maamadeena Soomaaliyeed aan u duceyno. ninka gacan ka geysan karo dhaqaale bixin karana kaliyahaas in laga bedelaa laga yaabaa. dad baa u dhaqaaqaya hadda kaliyahaas in laga bedelaa laga yaabaa. dad baa u dhaqaaqayo. marka dhaqaale ninka geysan karo ee gacan ka geysan karana gacan ha ka geysto. ninka gacantaas aan awoodin dhaqaalahaas aan awoodinna duco ha ku kaalmeeyo. ducada waa shay qaali naftirkeeda, waxay kugu toosinaysaa wadada saxda ayay kugu toosinaysaa. marka walaalayaal walaasheena Aamino Dhool aan u duceyno aan gacan ka geysano. ilaahay caafimaad ha noo siiyo. Soomaali Maxamed waxay taqaanaa qofka markuu caafimaad qabana waa la buunbuuninaa oo waa la korkoolinaa. marka mataqaanaaye maxaa la yiraahdaaye ii sheeg uu xanuunsadana inaaba dib dambe loo raadinin oo mataqaanaa xataa xaguu ku dambeeya aanan la dhihin. walaalayaal Soomaali waxaa lagu yaqiini inay iscaawiso, inay isgarab istaagto. kooda dhibaataysan dhibka ay ka saaraan ilaah baa dadka dhibka ka saari karo. qof bini aadan ah dhib dadka ma saari karo, ilaah unbaa ka saari karo. laakiin way dadaalaan. Soomaali Maxamed way dadaashaa. war maanta haddaanan dadka aan iscaawi lahayn Soomaali hal meel ma lagu arki lahayn. laakiin waxaa intaan lagu soo gaaray in Soomaali ay iscaawiso. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in aan caawino walaasheena fanaanadeena maamadeena Soomaaliyeed Aamino Dhool. waa gabar Soomaaliyeed, waa maamo Soomaaliyeed, waa fanaanad Soomaaliyeed. hala caawiyo Aamino Dhool. duco kii ku caawin karana ha u duceeyo, kii dhaqaale bixin karan dhaqaale ha bixiyo. isbitaal ay ku jirtaa,
إنه إلهي عافماد موسية أن أود استاغنو أدعينو وولا شينا إذا ذكر سومالي محمد وحالو باهي هي خفكي dhibaataysan inuu ilaahay dhibka ka dulqaado ee la saacido war haddaana isaacidin Soomaali maxamed yaana saacidaa haddaana annaga isaacidin ee annaga aana istaba taakulaynin yaana saacidaa cidna saacidaysa male Allah subxaanahu wa tacaala bis dadku waxay dhahaan Soomaali maxay ahayd yani Soomaali ceelna uma qodna cidna uma maqna laakiin yaa u maqan Allah subxaanahu wa tacaala u maqan kusii dheeraan maayo kusii fogaan maayo waxaan ilaahay ugu baryaynaa aamino dhool inuu ilaahay caafimaad siiyo inuu ilaahay caafimaad sariic ah inuu ilaahay siiyo xanuunkan ilaahay ka dulqaado inta muslim ee xanuunsan ee Soomaaliyeed inuu ilaahay xanuunka ka dulqaado inta dhibaataysana dhibka ilaahay ka bixiyo Soomaali way dhibtootay meel walba ay dunida ka joogto dhib way ku dhibtootay ilaahay waxaan ka baryaynaa wadankeena inuu nabad iyo barwaaqo noogu soo celiyo bal walaalayaal aan u duceyno walaasheena aamina dhool wax kale uma soo fariisan caawa inaan taas isafarno kaliya ayaan u soo fariistay walaalayaal meel walba joogto xilli walba taagan tahay u ducey walaashaada waa gabar Soomaaliyeed waqti kasto ay ku tahayna ha ku wacnaato halka aad naga daawanaysidna waa Jana Galafoor official hadaad nagu cusub tahayna subscribe like share comment inta naga iloobina hadaad nala joogtayna waad ku mahadsan tahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh